inaan gobolka hawd aan ku soo dhaweyno barasaab aan kartidiisa ognahay, barasaab hiil leh, barasaab diriir leh, barasaab deeq leh ayaan ku soo dhaweynaynaa gobolka hawd. saaxiibkay loo tahay maanta inaan gobolka hawd aan ku soo dhaweyno barasaab aan naqaano, barasaab aan kartidiisa ognahay, barasaab hiil leh, barasaab diriir leh, barasaab deeq leh ayaan ku soo dhaweynaynaa gobolka hawd. booq afar wax buu dadka ii dheeryahay. aniga afartaa wax baan idiin sheegaya. aabbahay waa baxda waxbarashada. aabbahay iyo aabbihii saaxiib bay ahaayeen. aniga iyo booqnaa laba ninoo saaxiib ah oo waddo dheer soo wada maray baan ahay. midka saddexaad waxa weeye booq aabbihii anigana macaankaygu ahaa wax ii soo dhigay waxa weeye sunnaha dowladnimada ayaa maalin badinna loo dhiibaa. maanta booq wuxuu barasaab u yahay deegaan yaqaano dirirta, deegaan yaqaano deeqda, deegaan yaqaano hiilka ayuu maanta barasaab u yahay. waa marki doontaa haddii lahay walaalayaa deegaanka marka laga sheekeynayo gobolka hawd qofka barasaab looga soo dhigaa deegaankayagaa naqaana ayuu ka duwan dadka kale. deegaankayagu ma ilaabaan qof walba taariikhda uu kaga tago. booq maanta markii la magacaabay telefoonadii ugu badnaa ii soo dhacay waxay ahaayeen tala soo booq idinkaa saaxiibe waa nuuceeye. qaar baa iyagoo eegaya hal adayga maqadaafiyo kalaa bay igu yidhaahdeen. markaasaa waa sadaam xuseen. adayga iyo kartida wuxuu u bareeray booqbaan maanta halka ka sheegaya. annagoo wadaniya oo lays ubaarsanayo oo lays erinayo oo ninka gobolka gabiina garaa la soo qabanayo ayaa waxaan ku nasan jirnay oo nugini jirnay hoygiisa. markaasaan waxaan ohan jirnay man dakhala beytu abusiyaan fa huwa aamin. booq haddii la joogno aamin bayna hawaan xarig hadday noqoto raggii la soo xiray baan ka mid ahaa anigu. maantana wasiirada xukuumadda ka tirsan baan ka mid ahay. waxa weeye baki baan ku xidhnaa, waa lay fogeeyey. booq wehel kale buu ahaa maxaabiisteedii baki ku xidhnayd abaalweeda runti waanu haynaayo halkaasuu nagu waray. caaqiladii aydu maqasheen aad lahaydeen caaqilo ayuu booq xiray. ilaahay ku dheeray tibamoona la soco soo arki maysaan soo koo wataba intiiba ilaa togma jaale ilaa arabsiiyo ilaa xildhibaanadii golaha deegaanka looma kala harin. booqo waxaan kugu soo dhaweynayaa deegaan dadkiisa deganee goyi. waxaan kugu soo dhaweynayaa deegaan dadkiisa degan ay sahal badan yihin. waxaan kugu soo dhaweynayaa deegaan in badan cunaqabatayn ay hore u saarnaan jirtay laakiin maanta xukuumadda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ay u soo bilaabayso kaabayaasheedii dhaqaalahan kugu soo dhaweynaya. waxaa kow ka noqon doontaa ragga dhismaha adag u dhigi doona gobolka maanta. saaxiibkay doob oo isagana aan sagootinayo wax badan odhan maayo laakiin wuxuu wareejinayo ayaa maanta aad arki doontaa muddadii uu joogay wixii uu ka qabtay. booqna mid baan ley booqow adiga iyo dooba labadiina mujaahidiina baad haydeen. midna maanta waa soo dhaweynayaa, midna waa sii sagootinayaa ayaa walaydilay. booqow anoo deegaanka afkiisa ku hadlaya, dareenka deegaankayga ku hadlaya. 3 cisho u dambeysay deegaankaygu wuxuu diyaargaroobayay soo dhaweyntaada waana qiimahaada annaga iyo deegaankaygaa ka noqo. doobna waxaan leeyahay doobow gabiyaraad bay kuu sugaysaa. soo dhaweyntaadu ilaa arabsiyay ka bilaamaysaa. laakiin reer burco
كسيك حنيا كقربين يلاني ريهم باكو قربين يلاني كريم الدنيا هذا في روحك قبل حياة